jajabkii iyo dadkii ka hadhay dhibaatooyinka iyo dulminayaasha meesha fadhiya gabdhi iyo wiilalba dhammaan wejiyo badan oo iyaga oo meydad socdaha ka soo baxay dadkii xabsiyada ahaa oo badan baa fadhiya dad agoon oo waxaa wejiyadooda arka abyowooda laayay dhammaantiin waan salaamayaa intaa kadib kolley markii tacaddi iyo arrimaha laga sheekaynayo maanta dhan haddii laga sheekeeyo kama gayoon karno wixii dhacay waxay marka ila tahay inaan iska soo koobto wax yar marka hore ama si guud u tilmaamo anigu waa liga weyn yahay dadkii jeelasha soo galay baa jooga dan iga wada waayo aragsan baa jooga marka bal anigu shaksiyan wixii aan goobjoogga u ahaa iyo wixii liiga sheekeeyey haddaan si yar u tilmaamo deegaanka xasuuqii ka dhacay waxaa lagu tilmaami karaa xasuuq caalami ah deegaanka soomaalida ka dhacay weliba mid aan noociisa wax lagu sifeeya aan la garanaynin baa deegaanka soomaalida ka dhacay xasuuqaasi wuxuu isugu jiray xasuuq wadareed iyo xabsi wadareed iyo boob wadareed iyo bahdil wadareed iyo balaayo badan baa dhacday wixii dhacay wax weyn buu ahaa xasuuqa deegaankeenna ka dhacay waxaa makhraati ka ah oo maanta ku filan tusaalaha ugu fudud geedkaad istaagta waa quburo arigaa raafka ku soo saaraya lafihii meydadkii la laayay oo makhraati ka tihiin deegaankeenna waxaa ka dhacay dhacdooyin badan oo dad intay mashquul suuliyo qontas dheheen meydad xiriiran baa loo tagay oo makhraati baad ka ahayda waxaad ogtihiin biyaha soo saaraya dadka lafahooda marka xasuuqa deegaankeenna ka dhacay baaxadda uu leeyahay kumanaan xabaal wadaneed oo ay 40 qof oo ay ku aasan yihiin baa jiro oo idinka komishinkii oo soo arkay meelo badan oo dhiig lagu soo arkay xasuuqyada deegaanka dhacay waxaa ka mid ahaa qoysas dhan oo dad iyo dunyo waxba loo reebay oo xididada loo siiday oo aan dunyana loo reebin dadna loo reebin waxaa jiray dad iyagoo noolnool la kixiyo aan meydadkoodii la arag wixii deegaanka dhacay waxaad arkayseen dad meydadkooda inta lasoo daadiyo in aasaska loo diiday oo ogeydeen oo meydku halkaa u yaallo marka dambe haadu cunaysay qaarna marka dambe bohoraha lagu gurayay iyadana way soo dhaceen waxaad ogtihiin gabdhaheenna wixii ku dhacay kufsi iyo bahdil loo geystana iyadana waad ka dharagsan tihiin oo taana iyadana inaan yar kusii dheeraado ma rabo intaasi waa xasuuqii guud ee deegaanka ka dhacay waxaan ku tilmaami karaa xasuuq caalami ah ka dhacay deegaanka balaayo weyn baa dhacday ayaan darro weyn intaan markaan ka gudbo aniga qoyskayga iyadoo aan ogahay in deegaanka soomaalida darafka daraf balaayadaasi ka wada dhacday oo aan aaminsanahay qof aan dhibana ahayn ama dhibaatadaas ayna saamaynin uusan jirin qoyskayga ayaan darro kalaa ku dhacday laga bilaabo 1997 ilaa intii u dhexaysay 2018 qoyskayga ayaan darro weyn haysatay waxaa ka mid ahaa in deegaankii aan deganayn xoolaha daaqsan jirnay deegaan ahaan deganayn aan ku nagaan weyno oo nalaga raray oon ka cararay oon ka qaxnay aabbahay inuusan 2 habeenoo isku xigta guriganaga uusan si toos ah u seexan oo habeenna uu dibadda seexan jiray habeenna oo intuu guriga fiidka yimaadna bixi jiray waxaan xasuustaa inaan 11 maalmood aan baxsan ahayn oon geedi ahayn anigoo 8 sano jira oo aan hooyaday oo umul ahaa ay 11 maalmood ay nala socotay waxaan soo marray habeen 6 saac oo habeennimo oo madow ah inaanu guurnay si aan u badbaadno waxaan anigu makhraati ka ahaay oo u soo joogay annaga oo 4 qoys ah oo xaafadannada una inaan midkanaba meel u guuray si meelna loogu soo raadi raaco yacni mid haddii la qabto 3 kale u badbaadaan aabbahay 7 jeer buu xabsi galay uu markii ugu yaraa 4 sano xidhnaa
oo markuu xabsi ka soo baxa uu midka u sii gudbay isagoo nabaradii iyo dhibaatadii ay loo geystay ay weli oogadiisa kasii muuqdaan. Dhimashada haddaan ka hadlo qoyskayga, 4 shacabaa dhimatay, markii laysku wada darana 5 bay noqonayaan. Meydadkoodii maanaan arag. Qoyskayga 24 qof oo ka mida jeel ogaadeen bay galeen, inta kalena xabsiyada deegaanka kale ku wada jireen. Qoys dhan oo weyn oo aad u faaweynaa baan keliyey ka badbaaday. Carruurtanada qaar baa jeel ogaadeen ku dhashay, qaar kalena xabsiyada ku qaangaadheen. Dadkii xabsiga ku leeday intii kasoo baxday kasoo badbaaday, iyagoo meydad socda oo lababay soo baxeen, qaarna lafa isa sursuganaya. Dadkii xabsiyada dhibaatoobay, 14 ka mid ah haddadan saamayntii xabsiga iyo jirdilkii intii dhimatay kasoo hadhay hadda way la ildaran yihiin. Qaar ka mid ah sidii loo garaacayay ma dhalaan ilaa hadda. Adeeradii baa ka mid ah, qaar way joogaan oo la dimuqraati baa laga yahay. Qaar way cagabeereen, hooyadii baa ka mid ah, oo xabsiga joogaadeen ku cagabeeshay. Walaashii baa ka mid ah oo dadkii jeelogaadeen ku jira iyadoo cunnaha gashay ah. Carruurta jeelogaadeen ku dhalatay ee qoyskayga qaar baa ilaa hadda xabsigii iyo saskay qaadeen aan habeenkii saxan. Qaar kale dhagaha dilaaca oo dhibaatada soo gaadhay ayay dhowr la dilaacaan. Haddana saamayn weyn bay ku yeelatay. Waxaa jiroo kale booraduug hantiyadeed oo daaxad leh, 3 jeer baa qoyskayga la booraduugay. Geelu 770 meelahaas ah, qaarna kaa tabcanay, qaarna tolka gadaal waagi dambe agoonta ka siiyo waa laga wada dhalsay kolleyda horena waa marar badan baad aragtay, buugna wax ka qornay, waxyaalo badan oo kale xogaana waad ka haysaan. Waxaa jiroo kale bahdil lagu sameeyey qoyska iyo reerka dhammaan. Aabahay oo de muuqaalo badan laga duubay jira oo bahdil weyn loo geystay, isagoo xabsiga jeelogaadeen. Wiilkaygu waa garac baa laleeyahay laga duubay, oo aad ogtihiin bahdilkaasna macal gabdhahena loo samayn jiray. Waa kii arigan kursanaa iyo dameerahan fuulaa la dhihi jiray, oo bahdilka laftirkeedu wax sahlan maa, sharaftu waa cajiib. Inaan waqtigaas sii badiyo hadalka ma rabi. Marka waxaan kusoo gabagabayn lahaa, waxaa wax cajiib ahoo aad loola yaabo ahaa, waxaasoo hoogaha iyo waxaasoo halaala wixii dhacay iyo ayaan darrada intaas leeg, inay hadda jiraan dad aaminsan inayna dhibaato la dhicin. 2013 bishii 5aad, anigoo 14 sano jira aan duurka kala u baxsaday. Xilligaa reerkan dhan waagii hore dee aabba aad loo dhibaateyn jiray, laakiin waagaa reerka dhan baa gacan galay. Hal qof kama badbaadin, keligii baa ka baxay. Aniga de markii hore aan xusay, xilligaa duurkaan galay 3 bilood yaan wareegeysanayay duurka, oo aan duurka galay. Buugkii aan qoray baan ku daray sheeko dibad wareeg la yidhaahdo. Marka aabbahay xabsi bay ku jiray, hooyaday xabsi bay ku jirtay, walaaladay xabsi bay ku jireen, adeeraday xabsi bay ku jireen, keligii baan baxsaday. Waxyaalaha inta haddaan wax ka xuso, dadka i garanayaan ka cararay. Magacaygaa bedelay iyo haybtayda iyo magaca aabbahay waa bedelay si aan la igu sheeginba inaan qoyskaa iyo reerka aan lagu leehay. 3 bilood habeenkii maanan dhaxalka ma soo bixi jirin. Habeenkii baan inta badan yaan socon jiray, haddaan meel aadin habeenkii. 14 sanaan jiray markaas. Kii iga yaraana markaa xabsi buu ku jiraa, aniga da'daa jira, kuwa iga yarana xabsi bay ku jiraan. Waxba haddii laga sheekeeyo oo sheekada la wado lagama gayoon karo balaayadii dhacday. Ugu dambayn 3 bilood kadib markaan duurka galay, dabkii ololayay ay shacabku dhexdooda ku noolaayeen, yaan waxaa si dhuumaalahoo qarsoodiya laga soo geliyay magaalada Jigjiga, oo adeerkay oo nala fadhiya oo halkaa kasoo jeeda. Yaan gurigiisa la keeno, magaca laga bedelay. Yacni dhibaatada intay la ekay waad dareemi kartaan. Shahaadooyinkayga waxaa igu qoran magacyo kale si aan u noolaado oo aan u badbaado. Marka ayaan darrada intaa la eg waa wax laga dharagsan yahay oo hooggaas ay nagu dhacay. Dadkii dhintay Ilaahay u naxariisto, kuwa nool hadda
tiiraanyada iyo ciilka la noola iyadana ilaahay samir iyo iimaan dhammaanta hayna siiyo kolley adduunka cadaalad ku heli maynaan aaminsanahay oo ilaahay baan agtiisa cadaalad ka helayna adduunka cadaaladda ku heyna aakhara ku helayna insha allah waxaan kusoo gabagabayn waqtigaas ka kooban balaayadii intaa leega dhacday dadkii dhigay maanta jijiga 10,000 oo dambiilaa jooga runtaa laisu sheegaya madaxtooyada joogaan xeelka u badanaya runta waxba in xaqiiqada la sheegaa loo baahan haddii xaqiiqada la sheegi waayana dee been baa laisu sheegay hal iscadiyaa meel bannaan laga soo dhan meel cabstin dadna iima noolo dunyana ma haysto dadkanagiina waa la baabiyey ummadiina waa la casuuqay kii dil iyo shalay geystay ilaa uu hadkii hortaagay kii kalena uu dhiig baxaya cid baroontiisa dhegeystan ma jiro kan maanta dhulka geystay hadduu u yimaado yiraahdo xakim hadda ka hor waxaan la qabsaday kelmad ma ahayn ibna macdum leeyahay xabsiga waa nacay qofku goorma la arki karaa qofku aadamasta qofku dhibka geystay markuu isagu u yimaado ama uu garwaaqsado intii uu geystay ama uu aaminsan yahay inuu dhib geystay uu leeyahay waan ka xumahay dhibkaasaan geystay yes ana reerka xasuuqay hal i cafiyo qofku markuu yiraahdo ayaa ruuxii ama cafiin xarb qofku yahay marka xogaa hadaan intaasina waa un xaqiiqo jirto oo wax beena maaha ciddii diidi iyo ciddaan diidayninba waxaa jiro oo kale dadka aaminsan inuusan dulmi dhici inuun xasuuq deegaanka dhico maalin waxaan arkayay nin qoraal dheer qorayo dadka deegaanka jooga qaar xataa mas-uuliyiin kasoo noqday eegana iska dhex jooga deegaanka deegaanku waa laga badbadinaya xasuuq ma dhicin maxaa balaayadan dhigay dadka yaa laayay lafahan bini'aadamkee bannaanka yaalayaa ama dadka maxaa ku dhacay dadkan lafahooda markii suudiyada la qodanyo 10 koox oo isku xidhan oo meyga la soo saaraya yaa laayay dadka maxaa ku dhacay dadka xasuuq waa la xasuuqay dadkeena si cad baa loo xasuuqay dadkii xasuuqayna way joogaan waana la garanayaa curadkii la gigay waa ogaa gura dambayskii xaqiiqada marka laga hadlayo marka waxaan kusoo gabagabinayaa telefoonka iga damay waxay ugu barbadnaayeen maalin baan anigu 2024 gabadh la kulmay 7 sano xabsiga joogaadeen ku jirtay markaa buugaan qorqorayay waxaan weydiiyey su-aal ahayd maxay xabsiga ku mutaysatay waxay tiri anigoo fasalka 8 iyo nin marajaay shukaansaday oo ciidankii markaa systemkii ahaa hore ahaa kadib waxaan ku iri bay tiri anu ardeed baan ahaa waan yarahay oo hadda sheekada iyo guur iyo waxaa kuma jiro ninkii marajaaga inay diiday xabsiga joogaadeen loo dhaandhiciyo 7 sanana ugu qaadatay way joogtaa deegaanka jijigayna la joogtaa marka waa wax laga yaqiiqsado oo laga yalaamiyoodo waxaas isagoo dhacay in haddana wax yar oo sahlan la sheego deegaankeenna agoonta joogta yaa kugu filan ba xasuuqii ka dhacay wax kale iyadoon loo kicin 500 kun oo agoonaha joogta dadka aabayogood yaa laaya baa taalla dadkii aabayogood laaya qaarna way nala joogaan qaarna way naga maqan yihiin hal la gaarsiiyo codkaas asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wixii su-aal oo weydiin kartaan